تميم بن محمد الثاني sidoo kan lagu yeero Sheekh Tamiim wuxuu ku dhashay magaalada Dooxa 3 Juun 1980 wuxuuna 1998 ka qalin jabiyay akademiyada ciidanka ee St Hartis ee maamusha boqortooyada Ingiriiska bishii Agoosto 2003 wuxuu noqday dhaxal sugaha koowaad iyo taliye ku xigeenka koowaad ee ciidanka hubeysan ee Qatar isla sanadkii 2003 Juun isagoo 33 jir ayuu noqday amiirka Qatar markuu aabihii ka tanaasulay kursiga sidoo kalena uu ku baaqay in la mubaayaco wiilkiisa isagoo awood ka helaya hooyadiisa Mozan bint Nasira al-Misni wuxuu si degdeg ah kula wareegay xilal muhiim ah sida taliyaha ciidanka madaxa sare ee dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo madaxa lajnada sare ee dhaxalka iyo mashaariicda sidoo kale waxa uu noqday madaxa ugu sare ee golaha amniga dalka iyo xubin kamid ah ciyaaraha Olimbigada isagoo Qatar ku hogaamiyay in lagu qabto koobka adduunka ee 22 Tamiim bin Ahmed ma uusan ahayn dhaxal sugaha koowaad ee saxda ah maxaa yeelay waxa ka weyn Jaazim bin Ahmed oo ay yihiin isku aabba oo kaliya كان كبير مر ayaa laga dhigay dhaxal sugaha koowaad balse Ahmed go'aankaasi waa uu ka labtay 2003 wuxuuna ka dhigay amiirka Qatar ee haatan Tamiim bin Ahmed aabihiis wuxuu xilka kula wareegay 1995 afgambi aanan dhiig ku daadan waxayna markaasi ka dib isku bedeshay dawladdan yar isha gaaska dareere ee caalamka ilaha diblomaasiyadeed waxay sheegayaan in Sheekh Tamiim uu yahay mid la fargala reer galbeedka iyo dawladaha saameynta xoogan ku leh bariga dhexe tani ayaana ka caawisay in uu guul weyn ka gaaro cunaqabateyntii ay ku soo rogeen bishii Juun 2017 dawladaha kale ah Sacuudi Arabi Imaaraadka Carabta Bahrain iyo Masar wuxuuna guursaday 3 dumar 2005 wuxuu la aqal galay Jawaahir oo ah gabar uu dhalay Ahmed bin Suhaim الثاني waxayna u dhashay 3 caruur ah sidoo kalena wuxuu guursaday 2009 Anood bint Man ah al-Haajire oo iyadana u dhashay 3 caruur ah 2014 wuxuu guursaday Noora bint Hazal ad-Dawsari waxayna u dhashay hal wiil oo kaliya waxa uu dheer luqadda Carabiga luqadaha kale ah Faransiiska iyo Ingiriiska hantidiisa qaaska uu haysto waxa lagu qiyaasaa 2.7 bilyan oo dollar sanadkii 2014 wuxuu gatay guriga taariikhiga ee lagu magacaabo Cornwall Terrace ee London ku yaala isagoona kala baxay 150 milyan oo dollarka Mareykanka ah Tamiim waa boqorkii ugu daada yaraa ee xil la wareega taariikhda qaliijka wuxuuna la yimid diblomaasiyad sare oo ay kula culuubeen duqooyada ka talisa qaliijka waxayna dawladda Sacuudiga xilka la doonaysaa Mohammed bin Salman si uu ula loolamo Tamiim bin Ahmed balse asagoo dhaxal suga ah ayuu la yimid falal ka fog diblomaasiyadda taas ayaana ka dhigtay faras aan la loolami karin faraska siyaasadda qaw adeegsada ee Tamiim bin Ahmed الثاني